فضله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهوينتا كحران هالك كان badbaada channel meel aad ku sugan tihiin ba ilaahay aydan xafido. dhibaatooyinka adduunyada kuwa kadiska iyo kuwa dadban, kuwa aadanaha ka imaanaya, kuwa qadarta ilaahay si gaar ugu imaanaya iyo kuwa ka imaanaya jinkaba ilaahay dhinaca aydan ka marsiiyo, iyadoo wax walba ilaahay awoodiisa aysan ka baxsanayn mar walba. waxa aad ku soo dhawaataan mid ka mid ah muuqaalada aan ugu jeclahay inaan walaalaha la wadaago. yacni muuqaalkan haddaan kula wadaagayo faraxsanaanta aan ku faraxsanahay inaan kula wadaagayo darteed heer sare joogta, waayo waxaan ogahay faa'iidada halkan ku jirta, dadkayguna ay boqolkiiba siyaadaba waliba u baahan yihiin. baahidiisina waa muntashira oo bimacnaa waa faaftay, arrintuna awood badan bay leedahay. waxaa weeye xaaja iyo muraad gooniya haddaad qabtid kaalay muuqaalkan dhegayso. qodobka iyo muhiimadan kuugu sheegayana fuli, ilaahay idinkii waa ku guulaysanaysaa muraadkaas. dan baad leedahay, muraad yar, arrin baa kugu taagan, waxaa rabtaa inaad heshid. ilaahay baa rabtaa inaad baridid inuu kuu fududeeyo. qof kastoo mu'mina ilaahay wuu baryayaa danihiisa inuu u fududeeyo, qof wanaagsan iyo mid si wax ka yihiinba. laakiin waxaan rabnaa ducadeennaas ama dadaalkeennaas wax noo fududeeya oo noo sahla oo noo kaba ilaahay idinkiis. intaana markaa qodobkaasi kula wadaagin, sii sheergare walaalaha kale la wadaag. laygtuna waxa weeye mahad celin xaggaada ka imaanaysa oo aad noo mahad celinaysid. marka laygtana ha ka bakhiilin inaadna siisid, waxba kuguma fadhida, siina sheergaraysid. ilaahay ha ka abaalmariyo, qacantana ha kuu barakeeyo. waxa weeye arrintan muraadkaad leedahay lagugu sahlayo oo aan ku leeyahay haddii aad samaysid ilaahay ka dalbo waxaad doonaysid, waa xaqiiqo la hubo inuu ilaahay kaa ajiibayo, in ilaahay kaa aqbalayo. maalmaha isbuuca maalintaad doontid ku aadiso waa istikhyaarkaada, laakiin 3 maalin ayaan kuu doorayaa insha allahu tacaala, oo bimacnaa awoodeeda lagu soo ogaaday ilaahay idinkiisa. maalinta koowaad waxa weeye darajooyinka yani u kala dambeeyaan ayaan kugu sheegayaa. maalinta koowaad waxa weeye marka ay khamiisi baxayso oo jimca soo geliyo, macnaha galabta khamiista casarka kadib baad u fariisanaysaa. galabtaasoo habeenka ku xigo uu yahay jumce. waa qodobka labaad, habeenka soo gelayso arbacadu, talaadana ay baxayso, yani talaada galabteedaad joogtaa wey, arbaca caawo dhalanaysa wey, casarka kadib talaadadaas wey. midkan kuu sii doorayo oo awooda badani waxa weeye maalinta isniinta, talaada soo gelayso casarka kadib, maalinta isniintana aad soontid, waa midaan kuu sii dooray. intaas 3daas iyo maalmaha kaleba kaad rabtid waad dooran kartaa, laakiin 3daas mid ku aadi. haddii mid aad qaadanayso 3daasna isniinta qaado, weliba adoo sooman, ilaahay dartii u soon. habeenka isniin soo gelayso, ilaahay muraadkaada inuu kuu sahlo. kadib maalintaasi isniin markay soo gasho, salaada casar aad tukatid, u fariiso niyadana dantaada adoo ku haysta, ilaahay inuu kuu sahlo, kuu fududeeyo, meel ay arrintaasiba kaaga xiran tahay. maxaad samaynaysaa? waa sooman tahay, isniin baad joogtaa ama maalmaha kale aad joogtaa. waxaad samaynaysaa, waxaad akhrinaysaa aayatul kursi. miyaad ka habaabaysaa qofyo muslimka ee mu'minka? waa maya. aayatul kursi ayaad akhrinaysaa. imisaad ka akhrinaysaa? waxaad akhrinaysaa 333 jeer. aan kuugu celiyo tirada, 333 jeer. cajiib, aayatul kursi tirada aad akhrisay. waxaad u malaynaysaa dantaadii kaa daahday hadda wixii laga bilaaba inay sii daahayso? miyaad u malaynaysaa? maya. waxaad u malaynaysaa muraadkaadu inuu daahaya haddaad sidaan samaysid salaada casar kadib 333 jeerna aad akhrisid. waad ku guulaysanaysaa muraadkaada.